بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. barnaamijkeenan kooban maanta wuxuu ku saabsan yahay su-aalayna soo weydiiyeen macallimiinta dugsi qur-aanku ay soo weydiiyeen. khaasatan su-aashaas waxay ku saabsan tahay sidee ayaa macallimiinta dugsi qur-aanku ay ilmaha u tarbiyadayn karaan oo uga dhigi karaan kuwo maqla iyagoo aan caruurta dilin. dilitaanka caruurta waxaa la isku waafaqsan yahay inuu dhibaatooyin fara badan caruurta u geysto, taasoo ay ka mid tahay inuusan ilmuhu waxba maqal, in uu maaragtay mustaqbalkiisa xumeeyo, mid dhaga adag ka dhigo, fahamka ka hor istaago, mashaakilo badan inuu u leeyahay, ilaa iyo aakhirka inuu keeno xanuunadan maaragtay oo dhimirka camal ah, dhimir laakiin qarsoon oo aan la dareemi karin inuu keeno. in ilmuhu hadhow nolosha ka dhaco, inuu waxbarashada naco, inuu qur-aanka naco, dhibaatooyin fara badan ayuu leeyahay. marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo sideebaa macallinku ilmaha uga dhigi karaa kuwa maqla. marka farsamooyin cusub oo casriya ayaan rabaa inaan tala ahaan macallimiinta su-aalahan soo weydiiyey iyo kuwa kaleetaba inaan maaragtay aan usoo gudbiyo oo ay tijaabiyaan, arkaan haddii marka ay u shaqaysana marka ay ku dhaqmaaneen. marka hore horta dilitaanka baan waxaan rabnaa inaynu bal ka hadalno muxuu faa'iido leeyahay. runtii waxaa la isku waafaqsan yahay in dilista caruurtu waxba yaraatee faa'iida oo ay leedahay aysan jirin, bal ilmaha ay dhibaato u tahay oo maaragtay diiniyana aysan ahayn wax bannaan. waayo ma jirto masale diina oo bannaynaysa caruurta in la dilo aan ka ahayn xadiis nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ah caruurtiina salaada waxaad ku furtaan markay jiraan 7 sano, 10 sano markii ay gaaraanna ha lagu dilo salaada, oo maaragtay hadday diidaan salaadii dilitaan gacana ha loo qaado, waxoogaa ha la yar xanuujiyo. arrinkaa marka da-du waxay ka bilaabmaysaa 7. ilmaha badanaa 6 sano meelahaasaa dugsi qur-aanka lagu geeyaa. marka ilmo 6 sano jiray 7 sano 8 sano 9 sano 10 sano horta dilkiisu lamaba ogolaba. shayga kaliya ilmaha lagu dili karaana ma aha inuu qur-aan ka soo bixi waayo ama galaas dugsi qur-aanka dhexdiisa uu dhibaato sameeyee, waa inuu salaada yahay. salaada unbuu noo banaynaya, wax kaleeto ma banaynayo. waxaan ognahay diinteenu nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan oo ka sugnaatay inuu caruurta u naxariisan jiray, inuu sida dad waaweyn ula dhaqmi jiray, inuu maaragtay ixtiraam gaara siin jiray, in maaragtay uu la ciyaari jiray, in salaada isagoo tukanaya ay dusha ka fuuli jireen, oo haddii ilmo ooyaya uu maqlo oo maaragtay dumarka saxaabiyaadku ay wataaneen uu salaada soo gaabin jiray, ixtiraam siyaadaa uu samayn jiray. maanta dhaqamada isbedelay waxaa ka mid ah ilmo yaroo caruur hadduu masaajid soo galo kulli waa lagu qaylinaya, waa laga eriyaya, lamaba ogolaba caruur inay masaajid soo gasho. marka qolyaha dugsi qur-aanka waxaan kula talinayaa horta caruurta haddaa iska dishaan oo sidan waalida ah weliba oo aad u dishaan aad maaragtay u garaacdaan, arrin waxay noqonaysaa aakhiro oo laydinkula xisaabtamo oo laydin weydiiyo. waayo ma bannaana inaad dishaan, diin idiin bannaynaysaa ma jirto ilmaha inaad dishaan, waa khalad. ilmaha qaabab wuxuu leeyahay loo tarbiyadayo oo loo edbiyo, kuwaasaa isticmaalaysaan oo si deganaani ku jirta iyo xigmad. marka ilmaha horta dilitaankiisa bilkuliyanba waa inuu macallinku uu mamnuucu go-aan ka qaato, waayo badanaa xanaaq fara badan baa inagu jira. caruurtuna xoogaa dhib kama aha, laakiin waa dad raba inay wax bartaan oo aqoon siyaadsadaan oo wax tijaabiyaan. khaladaad baa ka dhacaya, khaladaadka ka dhacaya marka in lagu dilo maaha, waa in khaladka caruurta loo ogolaado. caruurta waa khaldami kartaa, laakiin waa wax loo sheego oo maaragtay lala hadlo. waxyaabaha dhacay hadda Soomaaliya ka dhacay waxaa ka mid ah oo qadiyadaha dhowr anigu xataa aan qaarkood usoo taagnaa. macallin intuu caruurta ku xanaaqay oo ku weyraxay nafta ka qabtayba, si u garaacayay ilmihii isku kaajay, ilmo maahan weliba nin weyn dhaqan celis loogu keenay, si u dilaayay nafta ka gooyey. waa dhibaato nasiib darro ah. waxyaabaha dugsi quraanada ka dhaca maaragtay waa waxyaabo oo maaragtay mashaakilaada. macallinku intuu carada furka tuuro, weyraxo ilmaha, si u garaacayo uu si xun u dilo. macallin aan arday aan jeclayn macallinkiisa dugsi qur-aanka ama aan xusuus u ahayn ma jiro, laakiin xusuustaasi waa inay xusuus fiican noqoto, waa inay noqon bes macallinku waa idili jiray oo dil buu ii geysan jiray. marka waxyaabaha macallinka laga rabo inuu isticmaalo waxaa ka mid ah arrimahan soo socda oo aan sheegi doono. si marka hore waxaa la rabaa inuu go'aansado horta inuu diliinka uu gebigiisaba joojiyo, kadib markaa wuxuu u dhaqaaqi karaa qaab kaleeto oo uu ku bedelayo dilkii. waxaa marka taa ka mid ah uu dilitaanka ku joojin karaa. kow, ilmaha wuxuu u samaynayaa marka ugu horeysa wuxuu samaynayaa horta wuxuu la gelayaa shir. waayo
nidaam soo socday buu ahaa waxaan dugsi qur-aanka ka jiray masalan 30 caruur 40 caruur 50 caruur baad mas-uul ka tahay oo dugsiga u dhigtaa waxaad samaynaysaa maalin maalmaha ka mid a isbuuca toddobaadka bilowgiisaba waxaa iclaaminaysaa caruurta in maalinta khamiista bacda alcasar wixii loo gaaro uu jiro shir u dhexeeya macalinka iyo ardada dugsiga u dhexeeya waxaad leedahay maalintaa waxaynu gelaynaa shir arrimo ku saabsan nidaamka dugsi dhigashada baynu ka shiraynaa caruurta waa ku farxaya muxuu yahay bay dhahayaan waxaad leedihiin waxaynu ka shiraynaa qaabkaynu meeshaan ugu wada noolaan lahayn diritaanka waa la joojinaya si wanaagsan loo wada joogi lahaa laysna maqli lahaa nidaam cusub iyo barnaamij cusub baana bilaabayna maalmaha dhan caruurtu arrinka waa xiisaynaya maalinta marka khamiista marka la gaaro waa lasoo fariisanayaa macalinku 3 qof oo ardadii ka mid a oo gabdho iyo wiilalba isugu jira buu wuxuu ka dhigayaa marka hore guddi ahaan u dooranaya guddi baa la dooranaya ardayda dhexdooda caruurta waaweyna oo macalinka caruurtii la kaalmaysa kadib isagaa wuxuu noqonayaa markaa shir guddoomiye shirarka noocaas oo kaleeta weliba waxa wanaagsan in la wado macalinku wuxuu dhahayaa anaa shir guddoomiye ah ardayda ka mid a mid wax qori kara baa waxaa loo dhiibayaa qalin iyo warqad waa la kala qoranayaa wixii maaragtay shirka ka soo baxa oo lagu heshiiyo arrimahaasi caruurta waxay barayaan wada hadalka in qaab hadala wax loo xalliyo inaan dil kaliya wax lagu xallin in nidaamka caruurta nidaamka waa jeceshahay kadib wuxuu samaynayaa marka horeeto dugsiga dhexdiisa laftigiisaba wuxuu leeyahay qof walba waxaan u samaynaynaa boos uu fariisto waan laga fariisan fowdada caruurtu ma jecla caruurta marka wuxuu ka dhigayaa saf caruurta xoogaa qur-aanku ku adag yahay wuxuu keenayaa safka hore safka labaad kuwa kale kusii xiga safka ugu dambeeya wuxuu geenayaa caruurta oo wanaagsan oo akhlaaqda leh safka hore xoogaa caruurta fudfudud buu keenayaa meel uu ishooda ka arki karo ilaa 5-6 saf buu ka dhigayaa hadba qaabkay u fadhiyaan bay ku xiran tahay laakiin caruurta saasuu u kala hormarinaya 2-3 boos oo caruurta uu kaga dhegeysto dugsigana wuu samaysanaya qolku waa inuu u kala calaamadsan yahay macalinka caruurtuna waa inay boosaskooda ay kala taqaano waa muhiim arrinkaas intaa markuu sameeyo shirka oo boosaskii lagu heshiiyo ilmo walba la yidhahdo booskaanaad leedahay booskiisi loo calaamadiyo shirkoo socdaba sidii loo fariisanaya marka booska loo kala qaadanayo qof walba wuxuu dhahayaa macalinku amraya marka dugsiga yimaado booskiisu fariisanaya kow wuxuu kaleeto macalinku ardada u sheegaya kow horta wuxuu tiranayaa in dilitaankii uu samayn jiray uu khalad ahaa inuu caruurta ka raali gelinayo wuxuu leeyahay waxaan idin weydiisanayaa cafis dilitaanku wax fiican maaha ilmo dambena ma dili doono laakiin hadda kadib ilmihii khalad sameeya waan ganaaxaya marka horeeto waa loo digayaa mar labaadkana waa loo digayaa mar saddexaadkana waxaa la saarayaa ganaax kartoon buu marka meelaha kasoo qaadanaya uu soo geeyey meel dugsiga geeskiisa ah derbiga geeskiisa ah buu wuxuu ka calaamadsanayaa 1 gees 2 gees ama 3 gees buu kartoonkaa dhigaya haddii 3 caruur isku maray khalad sameeyaan suu mid walba gooni uu istaajin karo ilmaha marka wuxuu samaynayaa de'da uu yahay waqti ah buu ganaaxaya مثلا ilmaha 6 sano jiray 6 daqiiqo meesha istaajinaya iyada laftigeedu ganaax laftigiisu qaab uu leeyahay oo ilmaha ay u qaataan uu istaajiyo kow waa u digaya mar labaad waa u digaya mar saddexaadna ilmaha la hadli maayo wax wada hadal la geli maayo istaag buu leeyahay meesha ganaaxu markay istaajinaya caruurtu inay ku qosqoslaan ama ay daro sameeyaan wuxuu leeyahay shaqadiina ka wata qofkii khalad sameeyay isna waa ganaaxaya kadib wuxuu leeyahay ilmaha 6 daqiiqo halka ku ganaaxan tahay saacadu uu qabanayo uu eegay taleefankiisu saacada ka eeganaya wuxuu leeyahay 6 daqiiqo maaragtay baad ganaaxan tahay kadib markaa wuxuu macalinku samaynayaa ilmihii markuu ganaaxii dhamaysto soo degbuulay uu u yeeray hortiisu soo istaajinaya wuxuu leeyahay maxaan kugu ganaaxay waa muhiim arrinkaas ilmuhu waa inuu sheego marka hore uu toosinaya sababtii lagu ganaaxay wuxuu leeyahay khaladkaasaan sameeyey waxbaan maqli waayey ilmaan jugsiiyey kanaan sameeyey waxay doontaa ha noqoto wixii uu macalinku ku ganaaxay oo khaladka ahaa waa inuu ku celiyo markuu ku celiyo uu sheego uu macalinku markaa wuxuu leeyahay waxaas aa samaysay ma khalad baa mise waa sax ilmuhu markaa wuxuu leeyahay waa khalad markuu yiraahdo waa khalad markaa wuxuu leeyahay macalinka raali geli macalinku uu imaanaya wuxuu ku leeyahay raalli ahow haddii macalinku markaa macalin xoogaa naxariis leeyahay hab isii buu leeyahay hab buu siinaya raalli ahow madaxa ku leeyahay madaxa ay macalinku ka taabanaya madaxa hadduu ilmo khalad ka galayna macalinkana wuu siinayaa raaligelinta maadaama mas-uuliyaddii macalinka uu meel kaga dhacay ilmahana wuu siinayaa raaligelinta labadaba kadib booskaaga fariisuu leeyahay dhag ilmuhu markaas wuu is ilaalinaya in caruurta laga dhex saaro oo la takooro oo meel geesa la istaajiyo 6 daqiiqo 7 daqiiqo 8 daqiiqo ba ilmaha dilitaanka dhan iyada kala weyn muddada uu meesha taagan yahay wuu fakaraya caruurtii laga dhex saaray kow wuu fakaraya khaladkiisa buu xasuusanaya ka fakaraya macalinku waa inuu khaladkaaga ka fikir waad ganaaxantii halkaa istaag
markuu fakero kow mar labaadka markuu yimaado khaladkiibu afka ka qiraya sheegaya maskaxdiisu soo saaraysa kadib wuxuu sheegayaa wuxuu inuu khalad ahaa kadib wuxuu bixinayaa raaligelin inuu macallinkii ka raaligeliyo iyo hadduu ilmo kale khaladka kale inuu ilmihii kaleeto khaladka ka raaligeliyo kadib booskiisiibuu markaa wuu fariisanaya ganaaxaas horta macallinku waa inuu isticmaalo hadduu taa isticmaalo shaqadu waa u fududaanaysaa dugsiga dilitaankii iyo buuqii yaraana waa istaagaya macallinka marka waxaa laga rabaa inuu caradiisa yareeyo sabr iyo dulqaad inuu muujiyo go-aankan ganaaxana inuu ku adkaysto nidaamka carruurtu boosaska u fariisanayaanna inuu ku adkaysto dugsiga inuu shuruuc u sheego maalintaa shirka ah inaan la hadli karin inaan la buuqi karin in qof waliba casharkiisa uu akhristo waxaasoo dhan kan u weyn buu leeyahay ii qor intaa marka uu sameeyo carruurta energy badan baa ka buuxa waa cayaar badan yihiin qur-aankana si ay u xifdiyaanin waxa u fudud inay isticmaalaanin maaragtay enerjigooda hal saac markuu dugsigu socdo 15 daqiiqo 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo macallinku carruurta wuxuu u saarayaa bannaanka oo bareen aan nasniina sida dugsiyada oo kaleeto bannaanka inoo soo saaru leeyahay wuxuun ciyaara baa la ciyaaraya sida cayaartan shaar daba dhigga la yidhaahdo gabdhaha goonibu wuxuu leeyahay xilqad u gala wiilashana sidoo kaleeto maraa mid gadaashiisa la dhigaya xoogaa baa la isbacbacsanaya ama kubad yar waxa liya wuxuu ku cayaarsiin karo ama wuxuun la tuurtuuro haddii aagu yahay meel lagu orordi karo dariiqo ama meesha irideeda xoogaa la istaagi karo 10 daqiiqo markuu ka neefiyo oo ay nakhaska iska saaraaniin wuu misna dugsigu ku soo celinaya fasalkii baa bilowmayo qof liba booskiisa ha fariisto tartiibna ha loo socdo orodka iyo waxaas mamnuuc buu ka dhigayaa in la ordo laba saddex ha loo socdo carruurtu wax nidaamka ka jecel hadday arkaan in mid yaroo wixii lagu heshiiyey shirka khalada sameeya waxay samaynayaan iyagaa macallinka ku dacweynaya dacwadda laftigeeda macallinku waa inuusan ogolaan carruurtu inay war shubto oo dacwooto oo nabiib samayso wax fiican maaha ilmaha wuxuu leeyahay ma soo sheegi karo khalad haddaan isaga dhibaato loo geysan uusan dacwo ahayn hebel waxaa ku sameeyey hadduu yidhaahdo waxba kaama gelin waa inaa ku tiraado anaa mas-uul ka ah meeshan adii mas-uul kama tihid qur-aankaaga raaco hawshaada raaco qofna iima soo sheegi kartid anaa la soconaya dugsiga taa waa inuu yidhaahdo arrintaa markuu sameeyo macallinku muddo 2 isbuuca markuu saa u dhaqmo ilaa 3 isbuuc uu sidaa carruurta ku sameeyo waxaan hubaa dugsiga dhan inuu isbeddel ka dhacayo weyn waxaa marka intaa dheer waxyaabaha kaleeto oo loo baahan yahay oo dugsiyada qur-aanka oo soomaalida muhiimka ah waxaa ka mid ah in dugsiga laftigiisa macallinku hadda whatsapp baa la isticmaalaa waxa la yidhahdo whatsapp group ardada waalidiintooda carruurta uu kulli teleefanadooda dabcan wuu haystaayo uu qorto hadduusan aqoonna qof dhallinyaraa yidhahda ii samay whatsapp group sameeyo maalin maalmaha ka mid ah bishaas goortu 3 toddobaad carruurta sidaa ku wado haddii shaqadii gurigana ayaan ka socon oo gurigii dilitaan iyo dhibaata ka jirto oo ilmaha guriga mashaakil iyo buuq lagu soo sameeyo buuqa iyo mashaakilkaas ilmuhu meesha uu ku buuqanayo ay ku soo baxayso waxay noqonaysaa dugsiga qur-aanka si gurigiina macallinku uu u hagaajiyo uu labadaba murabbi uga noqdo waalidka wuxuu u samaynayaa whatsapp group shir buu u qabanaya teleefanadoodu warqad kaga qoranaya whatsapp group buu u samaynaya si loo wada shaqeeyo wuxuuna leeyahay guddi iska soo saara guddiga marka waalidku iska soo saarayo waa inuu hooyooyinna yeesho aabbayaan la yeesho dhinaca hooyooyinka kale 3 qof oo guddiya dhinaca aabbayaasha kaleetana 4 qof oo guddiya 7 qof wuxuu ka dhigayaa guddi iyo isaga 8daasna wuxuu u samaynayaa whatsapp group dugsiga carruurta dhigato oo dhanna haddii 50 ay yihiin 100 waalid baa dhalay ama 80 haddii aan aabbihii dhintay ama hooyo dhimatay adigu tiro 100 ka soo qaad 100kaasna wuxuu u samaynayaa whatsapp group waxa marka ujeedka laga leeyahay maxay tahay isku xir dugsiga ah qolada guddigu inay wixii awaamiira soo gudbiyaan haddii carruurta dhexdooda mashaakil dhaco in guddigu xalliyo 2 carruur hadday istagaasho maalmaha ka mid ah buu ballaminayaa waalidiintoodii buu wacayaa wuxuu leeyahay ilmaha dilay ilmaha dhib iga haysataa waalidkii baa loo yeerayaa markuu waalidku arko carruurtu arkaan waalidkii oo shiraaya oo qadiyadooda ka shiraaya waxay arkayaan malcaamadan qur-aanka dhigashadeedu inay wax muhiima tahay in waalidku wixii danaynayo iyaguna markaa waxay siinayaan ahmiyad iyo dan gaara markay arkaan danahoodii oo waalidkii ka shiraayo sidoo kaleeto iyadana taasoo kaleeto bay u qaadanayaan wax weyn bay ula muuqanaysaa waxyaabaha marka guddigu samaynaya waxaa ka mid ah maalmaha qaarkood marka munaasabaduhu ay jiraan oo kaleeto 3 bilood oo kaleeto 2 bilood oo mar kaleeto oo kaleeto macallinku carruurta abaalmarin buu siinayaa say u kala fiican yihiin waalidka marka oo 100 ah oo meesha ku jira iyo wuxuu oranayaa 3 kun ama 5 kun oo shilin Soomaaliya ha la iska ururiyo waa lacag badan lacagtaas 5 kun ama 3 kun wixii marka ay awoodaan cidii awooda
uu soo ururiyo oo waalidka guddiga waalidka loo dhiibo baa waxaa loogu soo gadayaa carruurta nacnac qori cabitaan hal maalin baa dugsiga marka inta la isugu yimaado ama meel dayra la qabsado baa carruurtii markaas isbuuca ama bisha qur-aanka si fiican uga soo baxday aadaabteedu fiicnayd kan aadaabta fiican oo aan ganaax la saarin buug yarow ganaaxa ku qortana waa uu samaysanaya carruurta midka kabiirka ah kii la ganaaxo wuxuu leeyahay magaciisa taariikhda iyo saacadda la ganaaxay ii qor tartiib markuu saa u qoro way yaraanaysaa uu rikoord sameeyo buug ka qoro maalintaa marka wuxuu la abaal marinayaa ilmihii wanaagsanaa kuwa kaleeta laftigooda la qadi maayo kuwan xoogaa wax waaweyn baa la siinayaa loo soo gadayaa funaanad ama baabuur yaroo lagu ciyaaro ama shay wanaagsan ama kutub ama wuxuun baa la siinaya ama qalmaanta kalarka wuxuun baa lagu abaalmarinaya lacagtii laga gaday kuwa kalena xabad nacnac qoriya cabitaan sambuusi waalidku soo dubay waalidiintoo kaleeto tabarucaad waxaa la dhahayaa qaar sambuusa soo dubeen kuwa burkackacaha soo dubeen dugsigii markaa wuxuu noqonayaa dad community ah oo bulsho ah oo isku xiran oo xataa haddii xaafadaha uu qalad ka dhaco waalidku og yahay macallinku og yahay ilmihiina sidaa lagu tarbiyadeeyo waalidii iyo dhibaatadii lagaga ilaaliyo taa iyada waxaan rabaa qaabka loo sameeyo inaan mar mawduuc gaara ka duubo laakiin intan laftigeedu hadda way idinku filan tahay tala ahaan iyo inaa idinkii aad samayn kartaanin wixii macallinka waxaa la rabaa dilitaan inuu mamnuuco uu xaggaa dhigo ilmaha dhexdoodana inuusan dilitaan ogolaan ilmihii ilmataabto uu ganaaxaya carruurta marka shirarka bishiiba mar buu qaban karaa maalinta khamiista oo kaleeto intuu qur-aanka joojiyo wuxuu dhihi karaa maanta waa shir carruurta dhammi waa imaanayaan maalintaas markaba wixii oo dhan uu kala hadlaaya intaasan marka insha allah kusoo gabagabaynaya dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin muuqaalkana insha allah ha la faafiyo oo ha la gaarsiiyo macallimiinta dugsi qur-aanka dhammaan macallinka dugsi qur-aankaaga haddaa whatsappkiisa hayso whatsappka ugu dir haddii la idmo insha allah waxay qaadan noqon doontaa xal ayay u noqon doontaa dhibaatooyinka dugsi qur-aanka iyo iskuullada ka jira wixii su-aalaana waa soo wada xiriiri doonaa haddii la idmo wabillahi towfiiq